kulanti wacan asxaabta qiimaha badan afur wanaagsan meel walbo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada xalqadii shanaad ee taxanaha dhakhtarkii mucjisada ah oo halkan ku falaqeyn doona kanaalka ku cusubta subscribe saalo sidoo kale gambaleelka si wararka degdeg kugu soo dhacaan share dhe asxaabtada lawada si kanaalka u bartaan sidoo kale musalsalada xiiso leh halkan aan ku falaqeyno ay kaga bogtaan warbixinta daakeyshig lag inoo soo su'aalaha ka qabto commentahan inoo garibo kaaga soo jawaabin oo maasantiin aan ku bilowna falanqeynta xalqadii shanaad ee taxanaha dhakhtarkii mucjisada ahaa oon maalin walba xalqad ayaan halkan soo gelin doonaa maadaama muddooyinkan damaan ka mashquulnay kanaalka icladada qabsada awgeed balse hadda barnaamijyadii si toos ah ayay joogto u ahaan doonaan shalay ayaana si toos u bilownay shalay waxaan halkan ku falanqeynay xalqadii afaraad waxayna ku gabagabaynay ama inoo joogtay cali oo carooday kana soo cararay macalin farmaa iyo nasli wuxuuna ka carooday hadal la dhahay oo ah in caliyo adiga laguma baahno meeshana nasli darteed ayaan u imaanay meesha isaga carar ayaa la dhahay calina wuu iskaga soo tagay waxaa kasoo daba ordeen macalin farmaa iyo nasli ayay kasoo daba ordeen iyagoo doonayeen inay cali joojiyaan balse baawur ayaa si lama filan ah wadada dhexdeeda cali kaga soo horbaxaya waxayna ku go-day xalqadii afaraad cali miyuu geeriyooday miyuu shil miyuu galay mise baawurkii miyuu ku dhacay mise wuu ka badbaado macalin farmaa ayay ka badbaadiyeen middaas halkaas ayay inoo joogtay haddaba meesha ayaan kasii maqaadaynaa xalqadii shanaad oo meesha inooga bilaabanayso haddaba cali luuqyada ayuu ku wareejinayaa macalin farmaa iyo nasli ugu dambeynna inay joojiyeen isku daya baawurkii kuma dhacay wuu ka badbaadaya laakiin mase istaagaya cali wuu sii ordaya luuq uusan ka baxsan karin ayay ku qabanayaan waxay leeyihin cali isdeji asagana wuxuu leeyahy wadada ii banay gurigayga ayaan aadayaa iyagana waxay rabaan inay dejiyaan maadaama uu carooday isaga dhan isku dardarsamay cudurkii hayayna kusoo kacay ugu dambeyn waxay wacayaan ustaad cadil ayay wacayaan macalin cadil ayaa la wacayaa taleefoonka ayaana loogu sheegaya cali ayaan qaban la-nahay xaalkiisuu xun yahay maxaan sameynaa hadal aad dhihi jirto oo ku dejin jirna inoo sheeg ayay dhahayaan macalin cadil isku day walba uu sameeya cali wuu diidaya wuxuu leeyahy wadada ii banay isaga dhan wuu socdaa kolba dhinacu u socdaa kolba dhinacu u socdaa ugu dambeyn waxay xasuusinayaan mindidii uu ku degi jiray markuu mindidaas qabsado ayuu xasilooni heli jiray cali mindidaasna waa mindidii uu siiyey cali walaalkiisii axmed yariiska ahaa ee geeriyoonayay xusuus lagugu tusinayaa markuu mindida siinayo waana wada ognahay dhammaanteena cali markuu yaraa walaalkiisii axmed oo inkastoo u da-ahaan u ka weynaa isagana uu yaraa ayaa mindidaasi xusuus ahaan u siiyey haddaba mindidii ayuu jeebka kala soo baxaya cali markuu mindidii gacanta ku dhigana walaalkiis ayuu soo xasuusanayaa wuuna fadhiisanayaa xasilooni ayuu helayaa macalin farmaa ayaa macalin cadil taleefoonka ugu sheegaya wuxuu leeyahay cali mindidii ayuu helay wuuna degay cadi waaye ayuu leeyahy kadibna macalin cadil wuxuu dhahayaa si toos ah guriga igu soo wada anigana gurigiisa ayaan toos u imaanaya guriga xaggan iskugu imaanayna dhammaanteed sidaas ayuu dhahayaa kadibna macalin farmaa nasli iyo cali way soo baxayaan cali gurigii u degnaa ayaa la keenayaa macalin cadil ayaana dejinayay kadibna macalin farmaa wuu baxaya oo gurigiisa ayuu hoynaya waa xilli haminimo ah sidoo kale nasli qolkeeda ayay iska aadeysaa subaxdii markii la gaaro isbitaalka la wada imaado macalin farmaa boorsooyinkiisa ayuu soo xirxiran doonaa wuxuuna leeyahay aniga meel ayaan aadayaa meel ayaan u babaxaya waana maanta wax aan isbitaalka ka shaqeynayo ma leh berita ayaan imaanaya ayuu dhahaya wuxuuna arrinkaas u sheegayaa saaxiibtiisii ama gaclisadiisii isabella kadibna wuu baxaya safar ayuu galayaa macalin farmaa wuxuu la kulmayaa macalin dhakhtarkii teja ayuu la kulmaya wuxuu leeyahy howsha adigan kaaga tega waan baxaya ayuu dhahay kadibna wuxuu usoo galayaa cali nasli iyo daymir dhakhaatiirtii isaga caawiyaalka u hayn ayuu usoo galayaa wuxuu leeyahay aniga safar ayaan ahay maanta ma shaqaynayo isbitaalkan waan ka tagaya beri ayaan imaanaya ayuu leeyahay haddaba mas-uuliyaddii isbitaalkii howlihii aan qaban jirnay saddexdiina ayaan idinkaga tegay ayuu leeyahay howsha sii wada ayuu leeyahay macalin tej ama dhakhtar tej ayaan idin hagi doono oo howsha idinkala diri doono ayuu dhahayaa sidaas ayuuna ku baxayaa macalin farmaa dhakhtar tej ayaa howlo u kala dirayo cali iyo nasli iyo weliba daymir sidoo kale cali waxaa loo diri doonaa wiil yar oo bukaan ah wuxuu leeyahy wiilkaasi howl ka qabo xaaladiisa ogow wuxuu u baahan yahay fiiri baaritaan ku samee haddii qalin ay sheekada noqotan in soo garsi ayuu leeyahay sidoo kaleetana nasli iyo daymir iyagana waxaa loo diraya nin oday waayeel ah oo wiilkiisi isaga isku dagaalsan yihiin odayga caloosha ayaa caabuq kaga dhacay
waxaa loo dilayaa baaritaan kusoo sameeya xaalkiisa ogaada ayaa la dhahayaa. Sidoo kale tan hadduu qalin u baahan yahay isagana qalin ayaa lagu soo sameynaya. Sidaas ayuu Tej dhahayaa. Tej qorshihiis wuxuu yahay in saddexdan midkood uu fashilmo haddii qalin ay galayaan ama howlaha loo diro bukaanadan iyo xaaladoodii wareysanayaan, xaaladoodii ka dhowrayaan in midkood uu fashilmo, kadibna uu macalin Farmaa dacweeyo ama Caadil uu dacweeyo, kadibna booska Caadil ayuu u hanqal taagayaa. Dhakhtar Tejkan wuxuu qorshihiis ugu weyn wuxuu yahay booska ugu sareeya ama kursiga ugu sareeya ee macalin Caadil uu ku fadhiyay Ustaad Caadil meeshaas ayuu doonayaa. wuxuuna mar walba dabagal ku sameeyaa macalin Farmaa iyo kooxdiisii dhaqaatiirta isaga caawiso ayuu dabagal ku sameeyaa. Cali bukaankiisii wuxuu u egyahay walaalkiisii, dhib ayuuna ka marayaa. Cali markii loo diro maanta mas-uuliyad weyn ayaa la saaray, waa markii ugu horeysay bukaan keligiis loo diro. macalin Tej ama dhakhtar Tej wuxuu leeyahay Tejan maanta keliga ayaan bukaankaas ku diray ee howshan ka qaba ayuu dhahayaa. Cali wuu farxayaa. Markuu soo ordo bukaankii uu imaado waa wiil yar, hasaba ahaatee wiilkii wuxuu ogyahay Cali walaalkiisii yaraa ee Axmed ayuu u egyahay. Cali wuu naxayaa, cabaar ayuuna story ku dhagaya, bows ayuu ku dhagaya. Cali meesha ayuu taagnaanayaa, wuu fiirinayaa walaalkiisii ayuu dib usoo xasuusanayaa. Dhanka kale Nasli iyo dhakhtarkii kale ee iyada jeclaa Daymar lagu magacaabay way soo baxayaan. Odaygii loo diray ayay u imaanayaan. Odaygii iyo wiilkiisa ayaa murmayn. Odayga wuu xanuunsan yahay, caabuq ayaa caloosh kaga haya. wiilkiisina wuu cariisan yahay. wiilka ayaa isku dayay inuu abiis raaligalay wax la fahansiiyo, laakiinse dhaqaatiirtan markay u imaadaan baaritaankooda iyo howshooda ay dhinac ka galayaan. Dhanka kale macalin Farmaa xanuun gaar ayaa hayo, dadkan uu ka qariyay. macalin Farmaa meel shaqo inuu aado ayuu iska dhigay. dhammaan dhaqaatiirtii iyo xitaa Isabella wuxuu ka dhaadhacsiiyey inuu shaqo gaar ah aaday, laakiinse xanuun ayaa haya dhanka wadnaha in laga hayo ayayna u badan tahay. laakiin gadaal ayaa laga ogaan doonaa. isbitaal gaar ah ayuu tagayaa, dadka o dhan wuu ka qarinayaa. dhanka kale Farmaa ayaa soo noqonaya ugu dambeyn. marka hore Cali ayaa isku dayay inuu badbaadiyo wiilka loo diray bukaanka ahaa. Cali wiilkii walaalkiis oo ka Axmed howshiisa ayuu gudagalayaa. wuxuuna isku dayay inuu badbaadiyo. wiilku wuu xanuunsan yahay, wadnaha ayaa laga hayaa. sidoo kale tan xaalkiisu wuu xun yahay, dhimasho ayuuna ku dhow yahay. Cali ayaa xal helaya, wuxuuna isku dayay inuu qalin ku sameeyo. isagoo qalin ku sameyn rabo ayaa macalin Farmaa subaxii dambe soo laaban doonaa. intuusan macalin Farmaa soo laabanin, Calina wiilkan baaritaan ku sameyna ayaa dhakhtarkii Tejan ahaa wuxuu canaanan doonaa dhakhtarkii Nasli jeclaa ee Daymar lagu magacaabay. wuxuu leeyahay adiga ayaan indhahayga kugu hayn doonaa, qaladaadkaada way bateen, ee howshan kuu dir qabo. macalin Farmaa wuu maqan yahay, adiga iyo Nasli iyo Cali ayaana isbitaalkan ka wada shaqeynan iyo howsh shacab ayuu leeyahay. haddii aad fashilantid anigana waan fashilmay, indhahayga adigay ku saaran yihiin ayuu leeyahay. odaygaas aan kuu diray howsh ka qabo. kadibna subaxii dambe markii la gaaro, Cali xal ayuu u helay wiil bukaankii loo diray. macalin Farmaa ayaa imaanaya. markuu isbitaalka banaankiisa ayayna ku kulmi doonaan macalin Farmaa iyo Cali. wuxuuna leeyahay Cali waa inaan qalin ku sameynaa wiilkaas yar, xal ayaan u helay. macalin Farmaa xalka dhan baba ogab, wuxuu leeyahay maxaa yahay wiilkaad sheegaysa Cali oo aniga haddaan soo dhacay. kadibna wuu u sharaxaya, wuxuu leeyahay wiil yar ayaa jiro, waana wiilkii Cali walaalkiis oo ekaa ee Axmed ka yariiskii Cali la dhashtay. wiilkii u ekaa waayo waa wiil u eg oo bukaan ah oo loo xil saaray Cali inuu xaaladiisa ogaado. kadibna wuxuu leeyahay wiilka qalin degdeg ayuu u baahan yahay dhanka wadnaha, aniga ayaana ku sameynaya macalin Farmaa inaa ii fasaxdid ayaan doonaya ayuu dhahaya. Cali sidaas ayuu dhahaya. macalin Farmaa wuu ka diidi doonaa. kadibna macalin Farmaa wuxuu la kulmaya Isabella ayaa ogaanaysa in macalin Farmaa been sheegay oo uu meelaan aada shaqo ayuu dhahay. meeshii markay baartana muusan aadin. markaas ayuu ku qabsanaysaa, maxaad iiga qarisa ayay leedahay, inteed ku maqneed meeshii waan aada dhahday ma aadan aadin. kadibna Farmaa wuxuu dhihi doonaa aniga meel ii gaar ah ayaan aadi, dhib ii gaar ayaan i haysto. kadibna Isabella waxay leedahay dhibka ku gaarka aniga aan ogeyn muxuu yahay ii sheeg ayay leedahay. wuu ka diidaya inuu sheego. wuxuu leeyahay bini'aadan walba adduunkan ku nool dhib u gaar ah ayaa jiro oo nafsadiisa bas ku eg, uusan qof kale la wadaagi karin. anigana dhibkaas ayaa i haysto, adigana kuley dhib uu ku haysto oo aadan jeclayn inaad qof la wadaagtid, anigana ma jecli inaan kuu sheego ayuu leeyahay. kadibna Farmaa wuu soo baxaya, wuxuu la kulmi doonaa dhakhtar Tejan. isagaa murmi doonaan. wuxuuna leeyahay dhakhtar Tejan Cali
cali ayaa saalada qalinka wiilkii yaraa saala rabo hadduu wiilkaas fashilmama ani adigna waa fashilanay ee ogowka gaar ayuu leeyahay. Farmaa ayaa degdeg u ordi doona cali ayuuna saalada qalinka kaga hormara wuxuu leeyahay aniga ayaa qalinka sameynaya adiga dibadda u bax ayuu dhahayaa. cali dibadda ayaa loo saari doonaa. Farmaa ayaana qalinkii sameynaya dhanka wadnaha qanjir yar hilib yar ayuu kasoo goonaya wuuna ku guuleysanayaa. waalidiinta wiilkaas dhaleen cali way necban yihiin wuxuuna leeyahay wiilkiina macni Farmaa ayaa banaan kusoo baxay waalidiinta ayuu nolol kulmay wuxuu leeyahay wiilkiina wuu badbaaday hadda kadibna mas-uuliyadiis aniga qaadaya cali ma daaweynay aniga daaweynay isdajiye ayuu leeyahay. waalidiinta cali ayay u xanaaqsan yihiin wayna dhibsan yihiin maadaama farafudeedkiisa uu batay cirbad ayuu wiilka ku daray taasoo kaleeftay in wiilkii degdeg saalada qalinka loo saaray qalin lagu sameeyo. kadib cali ayaa canaanan doona Farmaa ayaa canaanan doona cali falalkii uu ku dhacay ayuuna ku calaanan doonaa. Isabella ayaa ku dhawaaqaysa guurka iyada iyo Farmaa sababtay ugu dhawaaqaysana waxay tahay naagta Tejan la jirta ee iyadana xildoonka ah ayaa Isabella war badan ku badinaysa goobta cuntada lagu cuno waxayna leedahay adigii Farmaa xiriirka idinka dhexeeyay muxuu yahay maxaa horumar u gaar leediin. Isabella oo careysan ayaa hadal ka soo fakanaya waxay leedahay anigi Farmaa waa isguursan rabnaa adiga maxaad naga rabtaa ayay leedahay. anigi Farmaa goordhow ayaan isguursan rabnaa laakiin si qof ha u sheegin ayay leedahay sababtoo adiga waxaa tahay eedadeydii waana kugu sir qarsada qof ha u sheegin ayay leedahay. way ka xanaaqi doontaa duqdii xasidada ahayd ee isbitaalka jagadiisii ugu sarreysay rabtay way ka caroon doontaa arrinkaasi. duqdii warka lagu qarsaday ee guurka ahaa ma qarinayso si degdeg ayayna isbitaalka ugu faafinaysaa ilaa ugu dambeyn Nasli warkii la gaarsiiyo. Nasli waxay jecleed Farmaa oo jacayl qarsoodi u qabtay isaga ma ogeen markay warkaasi maqasho way niyad jabaysaa way murugoonaysaa qol ayay isku xiraysaa wayna ooynaysaa ilaa waxay maqashay Farmaa iyo Isabella ayaa isguursanayaan ayay maqashay. ugu dambeynna waxay la kulmaysaa Farmaa ayay la kulmaysaa oo wiishka raaci rabo. Farmaa ayaa dareemaya murugada Nasli kadibna wuu weydiinaya wuxuu leeyahay maxay tahay murugada ku hayso iyo waxa ay qarinaysid ayuu leeyahay. waxay u sheegaysaa waxaan maqlay inaad guursan rabtid maxaa ka jira ayay leedahay. midaas ayaad ka murugoynaysaa ayuu dhahayaa. markaas ayay dhahaysaa may ka murugoonay ee waxaan maqlay markaad guursatid kadib inaad isbitaalka nooga tagaysid sidaas ayaan ka murugaysanay ayay dhahaysaa. kadibna Farmaa wuxuu dhahayaa arrinkaas waxba kama jira adigaan haddeer afkaada ka maqlaya waana warar xan ah oo isbitaalka lagu faafiyay anigaana baaritaan ku samayn doono waxba kama jiraan aniga ma guursanayo halkana kama taga ayuu dhahayaa. Nasli ayaa aad u farxi doonta si toos ayayna isbitaalka uga soo tagaysaa maadaama xilligii shaqada laga waxayo shaqadeedii xilligeedii uu dhamaaday gurigeeda ayayna toos u soo aadaysaa. dhanka kale macalin Caadil ama ustaad Caadil ayaa wuxuu la kulmi doonaa cali wuuna dejin doonaa maadaama qalinkii loo diiday inuu sameeyo. dhanka kale Caadil wuxuu kula talinayaa cali inuu la saaxiibo Nasli wuxuu leeyahay Nasli waa gabar fiican hal guri ayayna wada degantihiin inkastoo laba qol ay kala degantihiin Nasli saaxiib ka dhigo waxay jeceshahay samee adigaba waxaa jecesha ayay kuu samaysaa adigana waxay jeceshahay samee ayuu dhahayaa. cali ayaa midaas ku dhaqaaqaya talo fiican oo yeelisiiyey si toos ayuuna guriga usoo aadayaa. Nasli ayuu filin u diyaarinaya. Nasli waxay jeceshahay daawashada filimka. Nasli hadalkii iyo Farmaa usoo sheegay ayay kusoo faraxday. cali ayaana lama filan kale u sameynaya xaflad yar oo habeenimo ah filin ayuu u diyaarinayaa cabitaan iyo cunno ayuuna u diyaarinaya wuxuu leeyahay surprise ayaan kuu hayaa macnaha arrin lama filan ayaan kuu hayaa ayuu dhahayaa. filinkii markay aragtay way sii farxaysaa. cali wuxuu u maleynayaa in Nasli ay ku faraxday waxyaabo isaga u sameeyay sidii filimka uu diyaariyay laakiin Nasli arrinkaas kuma faraxsan ee farxad ayaa uga horeysay oo ah in Farmaa uu u sheegay in uusan guursan doonin Isabella ilaan iyada Farmaa ayay jeceshahay. cali markuu arko qosolka Nasli wuxuu u maleynayaa inuu arrinkeedii waxyaabo isaga u sameeyay inay ku faraxday marka dareen jacayl oo qarsoon ayuu cali u qaadi doonaa Nasli. dhammaad xalqada shanaad halkaas ayuu ku dhammaan doontaa. Nasli oo faraxsan filinkii cali uu daawanayay iyo cali oo faraxsan wuxuuna ku faraxsan yahay Nasli oo faraxsan oo qoslayso ayuu arkaya wuxuuna u maleynayaa filinku isagoo diyaariyay habeenkaasi waxyaabo cunno cabitaankii wixii uu diyaariyay inay ku faraxsan tahay ayuu u maleeyay iyadana waxay ku faraxsan tahay waa hadalkii Farmaa usoo sheegay. daawadayaasha qiimaha badan xalqadii shanaad ee taxanaha dhakhtarkii mucjisada halkaas ayuu ku dhamaaday. waxaa inoo balan ah berito iyo xalqadii lixaad oo halkan idinkugu falanqeyn doono. inta kore soo bilay tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.